saddexdan qodob ee la soo jeediyay halkan waxa la isugu yimid in qodobadan ay soo dhigtay akaademiyadu qof waliba wixii ay la tahay sida looga baxayo talo laga soo jeediyay inta la sheegay ee dhaliili ee ama akaademiyadu soo taabatay ama cid kale ka hadashayba waa dhibaatooyin inala socday intii qarankeenu jiray Soomaaliland ee dhowr sanadood ta dimuqraadiyadda waxay la tahay qof waliba dhaliisha ee dimuqraadiyaddii wali wax looga dhimayay inkastoo ribadu ku guuleysanay haddana way muuqataa wuxuuna canaan ma inuu kaga baxna ma ahe waxa wanaagsan in qof waliba wixii ra'yigooda u soo dhigo horta marka dhinaca ka eegto dal aan cid ixtiraafsanayn ka soo doogay gobonnimadoon iyo jabhad muddo intaa leh dhibaatadiisa dhaqaale leh dhibaatadiisa bulsho leh oo ay ka mid tahay Soomaaliland maanta dadka ku nool boqolkiiba 70 inay daayar tahay u baahan mustaqbal iyo shaqo iyo nolol xaaladdu ku adag tahay haddana deganaansho iyo dimuqraadiyad iyo doorashooyin intaa kaga baxay horta waa mucjiso inuu isqalbi jabina ma aha waa guul weyn gaadhay waxa garab taala yeynaan oranin guul baynu gaadho waynu saxanahay wixii inaga dhimanna aan saxan dimuqraadiyaddu halkay ka soo bilaabtaa waxa la arku ka bilaabmaa dimuqraadiyadda asaaskeedu waa qofka waayo waxa la siiyay dadku inay xilliyaal go'an mudaysan awoodda madaxdooda ku bedelaan ama barnaamijyada doorashada la qabtaa dadku waa inay waqtiga hubiyaan inay bedeleen dhaliilihii horgeeji marka qofka wax dooranaya haddaanay u caddayn wuxuu dooranaya oo ay ka qaldan tahay dee ma hagaagaya wuxuu doortay maalan xisbeelku in badan ba xisbeelu jiray xisbiyada dhibaatooda way leeyihiin dimuqraadiyaddu xanafteeda ay leedahay xanuunkeeda ay leedahay ma jiro wax yani lagu helo si dhib yar oo smooth xisbiyadii waxaan isweydiinaynaa xisbiga qofka maanta xisbi registrada ee fii bixiya ee mabda aaminsan ee ka hirgelinaya uu yiri waayo inta aynu xisbiya maqli jiray xisbiyada iyaga lacag loo doontaa dadku ma marka xisbiga galaan waxay maxaan ka soo dheer waa dhab xisbiyada qabyaalada inta badan ku dhisay waanu isla wada tirsannahay inaanay qabyaalada anfacayn haddana kama guuro halkay sabtu ka kulmaysaa waa halkaa taana waxay ku xidhan tahay in mustaqbalka aan ku talagalno in xisbiyada mabda iyo ideology lagu raaco oo laga guuro reer laakiin waa marxalad yani muddo la socon karaysa saameynteeda marka waxaan leeyahay horta waxa u baatay dadka inaynu u diyaarino maskaxda xisbiyada maxay tahay maxay doonayaan waliba daayirta waa qodob waxaan qabaa marka qofka vote-ka bixinaya inuu ka hubsado vote-kiisa wuxuu bixinayo si waxa uu doonayo madaxda doonaya ay u hagaagto dimuqraadiyadda maxaa kale dhibaatay haysta waxa kale dhibaatay in haysta dimuqraadiyadda marka waxaan halkaa uga socdaa go'aanka talada dhiibaya akaademiyada dadka waxa weeye in dadka codbixiyaasha ah la tababaro oo laga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay codkiisu iyo waxa la doonayo inuu ku doorto qodobka labaadna waxa weeye ee dadku markay dimuqraadiyadda u socdaan in dadkii marka hore laga saaro psychology fikrad baa jirta xisbiyada siyaasigu waa ceeb xageen أنا على وراء وسياسي أنا على وراء ولا مثل الجيش حكمت كستوكها واحد كستوكها وكل هذا واحد يسوي حكم دوري ولا وراي واحد ليس كده سياسي واتو وبيناله وكوريا تنتيس كوريا مركب ما أمسد حتى أنا وادورنا ساعة أو واد بسقطة تلا بس قبضنا وحنو بقى معي مركب هراء إنه من السياسة بحيته والسياسة واقع تلا الوحيو واقع مستقبل كذلك الوقت ترينا أيوه واقع آيها عروتة وحي أدرى هذا كتلنا هدي هالكا دتكي أقوات لها دتكي إيمان لها دتكي فكر لها دتك اللي حجر دتك له هدي هالكا إيمان وياه أو يكتري وياه ده أقول ترى بوصل بحكم مهدي الميسي
haddaad tiraahdo ninka siyaasiga ee xisbiga jooga ama murashaxeed baarlamaan dooranayso ama aad dowlad hoose dooranayso bal u fiirsan markaad dooranaysaa maxaa lagu soo doortaa maxaa lagu calacalayaa ninka la doortay marka hore see loo soo doortay maxaa lagu soo naqiyey haddii aan halkaa la soo xurin qof alla ka cabsi leh iimaan leh lexajeclo u leh fishan dheer leh ummadda wuxuu talaya haddaanad soo naqayn dee mahadin maysi ilan tiin baad beeratee marka waxaa loo baahan ku talinayaa in dadka la dhacsiiyo markaa wax soo dooranaysaan dee wax warsan la soo doorto laakiin hadday tahay yaa u dusdus badan yaa halkaa wax ka soo marorsan kara wallaahi waa nibaa xorga kala wajiiraya xaafadaha kala wajiiraya dee meel gaari meeyo dadkan isu geeyina waxba noqon maayo waxaan xoojinayaa mar labaad qodobka talada ay tahay dadka la dooranayo waa in marka hore lagu doortaa wax laga doonayo tasdaxada soo jeeday haddii dimuqraadiyadda doonayo waa in dadka wixii ahlul xil wal ama diin ha lagu tuko ama iimaan ha lagu tuko ama la jecel ha lagu tuko rayid warba inay noqdaan dadka meelaha talada ee siyaasadda ee xisbiyada laga wada ay tahay isku heli mayno siyaasaddu waa ceeb oo waa wax haddana waan u dhiibanaynaa arrinka haddana wax wanaagsan baan doonaynaa isku heli mayno talayda dimuqraadiyadda taasaan ka odhanaya tamaamul daadejintana mid baan ka odhanaya waxay nagu jirtaa xaalad dhaqan oo afrika hor iska leedahay oo ah odayga un hala gaaro waxay nagu dhacaa wasiirka barasaabka ama gobolka ninka xukuma ka degmada xukuma qofku haddii uu muraad yar leeyahay muraad yar oo weynayba ma la joogsanayo ilaa odayga la gaaro madaxweyne anigu intii soomaalida qaranada jirtay xoogaan baan ahay arrintaa madaxweyne kastaa joogo isla dhibaato isku mid aan haysata waxa weeye waxaynu diidannahay dhaqan ahaan jaranjarada heeraarkeedii kala dambaynta inuu qof waliba mas-uuliyadda in leeyahay in lagu aamino lagu ekaado ayaa la diiday dabeetana waxaa dhacaysa maaha waxay u baahan tahay in la hubiyo ma dadka baawar jooga madaxweynaha diidan inay cid kala taliso oo talada urursanaya mise dadkii baan ku iimaan qabin wixii madaxweynaha ka sokeeya halkaasay su-aashu jirtaa ayuda adiga laga taladeeyo anigu waa aragna waxaa qabaa boqolkiiba 80 dadka ayaan aaminsanayn ilaa halkaas lagu gaaro waana fikrad dhaqan oo waxay ahayd geedka odayga loo geeyey hebel muxuu yidhi sudaanku muxuu yidhi intii dambana dictaatoryaddan u dhacday boqolkii sane ka horreeyena gumeysiga baa inoo tirinaya barasaabka hargeysun baa la gaarayay dabeetana awooddan filmaysa xitaa dadka xilka loo dhiiba laftooduna kalsoonidii ma wada haystaan oo malaga yaaba inuu qac wax ka siiyaba oo jiitamo laakiin waxa weeye taana waa inaynu bedelaado aynu ku siinaa baawarka dadka gobollada jooga dhibaarmanada wasiirada ilaa degmooyinka si ay hore inoogu socdaan marka labadu waxay u baahan yihiin in dadku dib isugu noqdo waxay doonayaan arrintan isdhexgalka ummadda social cohesion waxay inaga xumaatay intii uu soo kacay lacagtan la helay petrol 700 marka laga bilaabo ee ay carabtan agteed taajiriinta noqotay ayaa ummad badan oo dadkeena carabta u guuray waxaan kala soo noqonay dhowr wax carabta mid waxa weeye dhaqanka qabaliga ah markaanu xaggaa tagnay waxaan oran carabta ku faanaysa magaca qabiilka oo la baxaysa hebel xadramowti hebel aala sacuudi deetana ninka waxaa muddo u baarbaaray reerkoodisna hebel aala geele hebel aala qunac inuu dibba saas soo isticmaalo waxa kaloo kaga dayna maadaama isku dhaqannaho islaamka iyo dhaqanka qabiilada iyo caadooyin badan aan wadaagno waxaan kala soo noqonay isolationka family-ga markuu ninkii soo noqday waxa carabka oo in adeerta u guursaa oo kuwa faana dabeetana horta waxaa la kala xirmay xilligii dadka 700 ilaa 100 waxay ugu horeysay dabeetana reer wali waa isku wastay horta waa isku noqday iminka dadka talinaya ee carabka jooga hadduu 40 jir yahay ama ka jir hooyadii abi waa maadeen xaafada ugu kor ka badan ma yaqaan dadkana iyagu ma ugu fariidsada iyagu ma daacada fahmigooda dadka kale way dumaan iyaga u qaato iyaga wada iyagu baa is amaana mid walba soo yaro gaar u samaystay dabeetana waxa weeye isolation ka soo kala galay markaas oo kala oodan marka hore waa dhaqan aynaan hore u lahayn hore waxay u lahayd iyadoo Soomaalida geeska isu qabada kala guurista isdhex gasha kaftanta waxay doonaysaa media isu marso kala duday xidhnaashaas uu keenay carab badan colaad badan isku dhac badan muxuu nagu beeray
magaalooyinkii loo badegi jiray in xaafad waliba si caqaar hoose loo kala duwo oo beerta hebel ama meesha loo degay kala jirbiyo kayso waa dhibaato mustaqbalka aad iyo aad inuu soo socoto u baahan in dagaal badan laga galo oo dadka kor loo qaado oo la sameeyo waxyaabo badan oo wax ka bedeli kara goobo lagu kulmo naadiyayaal sports wacyigelin guud idaacadaha iskuullada waana si daro يعني كلا قوضة كنا نقول عاد وفوقها social cohesion هو حيوان يوم تدور مركز يقانا مثلا إن كهال كم كنت تجرح حافظ لك تدين كم صلاح إياك تدين شيخ مدر وحلقة يا باي إن مسلمين إن كشايرة جوجا أما كنيجيري جوجا أو إنترنت إيا بقى كير بوجا فيسبوك ولا كل أي كوا هذا ولا ده كلام سيء وقبلت على هاي واحد بعضنا cultural refusion كاي مكلينه سأل واحد يقول وحيانا كان بيقول بس نحن سوينا تربيحين متكلم أنا فيصل دليله وشيء وأوكي إنه الحب الأول لكن متكون حسن والله أنا سؤال أن السنة بتشري على وضع سيد هاي الوكل مرر عين وأنا جلس سؤال واحد نبتشري واحد فيصل وصل سوا نقوى لبعتين إنه حللوا باهر وقت هذا الجمله مثلا دولة المكتوبة كل مياه لهم أيضا تذكر كذا كفتاح كل مياه معارض حافظ أساس فلان أنا خلينا هو مقلسان وادي مقلدين حنون كذا واسحي مركي يقعد لنا الجسام عامها وادي مقلدين كان صح ما لكن مركب نبغى هذا الله حكومة كل ما تشوفتها مياه ذلك واحد وين كتر فيصل ما أنت عنانتها أنا لهاي بار مرينا واحد بدل بدل كترت واحد منهم يكلمه مركب واحد بيستنى إنه الشيء dhibaatooyin kana ay sheegano laakiin lama qabo saaxiibka in niyad jabka ah على واحد على كل مجرية توحيد كلا يبقى يقولوا وري من عايات لها أجهد هذه أدوم لا تنسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته